doorashada xildhibaanada aqalka hoose ayaa maanta mar kale ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana maanta la doortay xildhibaan ka dhinaa qoondada haweenka oo ahayd 30% doorashada kadib ayaa waxaa natiijada ku dhawaaqay guddiga doorashooyinka dadban musharaxiintaas oo ay kala ahaayeen injineer Nadiifo Maxamed Cismaan iyo Faadimo Faarax Ibraahim qamar injineer Nadiifo Maxamed Cismaan waxay heshay 14 cod Faadimo Faarax Ibraahim qamar waxay heshay 37 cod waxa ku guuleysatay oo u gudubtay musharaxnimada xildhibaannimada 2017 xildhibaan Faadimo Faarax Ibraahim qamar waxaan u hambalyeynaa walaashay ku guuleysatay xilka ay qaaday Allaha la garab galo anagana meel khayr qabta Allaha noo sahlo waad mahadsantii dhammaan intii codaysay intaan codaynay intii tarjoogsada hawsha sharafta la qabtay aada u mahadsantihiin insha Allah taala xilka noola admaday inaan ma aragtaa si wanaagsan u qabanno ururada haweenka ayaa iyana soo dhaweeyay in qoondada haweenka baarlamaanka Hirshabelle maanta la soo buuxiyay waxaan maanta isku imaanay doorashadii gabdhaha Hirshabelle gabdhihii ugu dambeeyay ayaa maanta halkaan hoolkan ka dhacay waxaan ku faraxsanahay si sharaf leh oo nidaam leh oo aan isqabqabsi iyo buuq aan lahayn inuu ku dhamaaday Hirshabelle maanta waxay ka soo dhalaaleen ay ka soo baxeen in ay ku guuleystaan 30% gabdhihii inay keeneen maamul goboleedka koonfur galbeed iyo maamul goboleedka iyo maamul goboleedka Puntland oo wili aan laga haynin gabdhihii kootadoodii ama se aanan soo wada ka soo dhigin maaragtay reserve seat ama aanan ka dhigin qoondadii gabdhaha aanan gooni u dhigin waxaan ayagana cod dheer iyo cod gaaban ka codsanaynaa in ay ku dadaalaan in ay gabdhihii ay soo bixiyaan oo kuraasta ugu horeysa ee la dooranayo ay noqdaan gabdhaha kuraastoodii haweenka Soomaaliyeed ee Hirshabelle waxay ku guuleysteen 30% inay helaan doorashada baarlamaanka hoose waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha madaalayaasha saxaafadda oo habeen iyo maalin u taagnaa inay tabiyaan xaqiiqada doorashada ka socota Hirshabelle waxaan ammaanaynaa dhammaan isku duubnida iyo wadajirka iyo wax wada qabadka dadweynaha oo aan kala harin dawladda ciidamada qalabka sida haweenka dhalinyarada sida ay uga hirgashay dawlad goboleedkan doorashada haweenku Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar